بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما سبتيه oo ay axad soo galayso 22 bisha November sanadka 2025 oo ku beegan kowda bisha Jamaadul Aakhir sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah waxaa xoogaysanaysa cabsi laga qabo in ay burburto xabad joojinta ulaha booca ku tukubaysa ee ka jirta Mareykanka Gaza iyadoo Israa'iil tan iyo saaka hiirtii waabari ay wado duqeymo iyo weeraro in ka badan 20 Falastiiniin ah ayaa lagu dilay weeraradan tiro kalena waa lagu dhaawacay militariga Israa'iil ayaa ku andacoonaya in ay dileen 5 xubnood oo sarsare oo ka tirsan Xamaas ururka Xamaas ayaa dhankooda waxay soo saareen war culus oo ku aadan arrimahan iyagoo jeediyay fariin kulul Ukraine oo duqeyn dhimasho iyo dhaawac sababtay ka geysatay gudaha dalka Ruushka ciidamada Suudaan oo dardar geliyay gulufka weerar ee ay ka wadaan gobolka Kordofan halkaasi oo ay ka socdaan dagaalo la isku reeqmay askar Israa'iiliyiin ah oo lagu soo oogay dacwad la xiriirta tahriibin hub sharci darro ah sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay maqaaxi ku taal dalkaasi koonfurta Kuuriya ayaa warbaahinta iyo baraha bulshada soo jiidatay iyadoo boor lagu soo dhajiyay haddii aad tahay hal qof ha noo soo gelin lamaanaha ma wadata waa su'aal la isweydiinayo maxay tahay sababtu sheeko la yaab la ayaan idinkaga haynaa qodobkaasi dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo duplex ah iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasto xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon fariin qoraal ah ama online waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ee Shafar Bush wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax lagaga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah qaybta higaada oo loo diyaariyay muddo cayiman qaybta xifdinta quraanka kariimka qaybta barashada shareecada sida xadiiska fiqiga siirada naxwaha tafsiirka quraanka iyo aqeedada iyo wixii la mid ah waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumarba leh oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa Suudaan halkaasi oo lagu soo waramayo dagaalo culus in ay ka socdaan gobolka Kordofan iyadoo wararka ugu dambeeyana ay sheegayaan in dagaaladan si weyn ay u sii xoogaysanayaan dhowr aag oo ka mid ah gobolkaasi wararkii ugu dambeeyay haddii aynu eegno ciidamada dawladda ayaa maanta sii waday horumarka ay ka sameynayaan furimaha waqooyiga iyo galbeedka Kordofan kadib dagaalo culus oo ay la galeen ciidanka loo yaqaan RSF sida ay sheegeen ila military dagaalo culus ayaa ka dhex qarxay ciidamada militariga iyo kuwa RSF deegaanka istiraatiijiga ee Samima oo 50 kilomitir galbeedka ka xiga caasimadda gobolka ee Al Ubayd isla markaana isku xira
gobolada waqooyiga Kordofan iyo galbeedka Kordofan. ila military ayaa u sheegay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga in ciidamada dawladdu ay ku sii siqayaan waqooyiga Kordofan iyagoo weerar culus iyo kuwa fudud ku qaaday xoogaga fallaagada ee ku sugan magaalada Samima. ila wareedku waxa ay sheegeen in ciidamada militariga iyo kuwa la safan ay ku sii siqayaan dhanka galbeed ee magaalada Al-Qawiya ee galbeedka kaga taal Kordofan oo qiyaastii 100 kilomitir u jirta Al-Ubayda. ciidanka Suudaan ayaa ku dhawaaqay horumar weyn oo ay ka sameynayaan jiidaha hore ee dagaalka ee gobolada Kordofan la isku yiraahdo, taas oo falanqeeyaasha ay u arkaan tilaabo loo sii qaadayo dhanka gobolka Darfur oo ay gacanta ku hayso RSF. 26 bishii Oktoobar, maleeshiyada RSF ayaa la wareegtay magaalada Al-Fashir waxaana ay geysteen xasuuqyo lagula kacay shicibka sida ay sheegeen hay'ado maxalli ah iyo kuwa caalami ah. RSF waxay hadda maamushaa dhammaan 5 gobol ee uu ka kooban yahay Darfur ee galbeedka Suudaan, halka ciidamada dawladdu ay gacanta ku hayaan inta badan 13 gobol ee koonfurta, waqooyiga, bariga iyo bartamaha dalka oo ay ka mid tahay magaalada Khartoum ee caasimadda ah. ciidanka Suudaan iyo RSF ayaa ku jira dagaal ba'an oo baqnogeys ah ilaa iyo 15 Abriil 2023. colaadda ayaa galaafatay nolosha kumanyaal kun oo qof, malaayiin qofna waa ay barakaceen, taasi oo isu bedeshay mid ka mid ah masiibooyinka bini'aadantinimo ee ugu daran ee dunida imika ka jira. waa hagaag bal markana aynu eegno colaad kale oo ka aloosan adduunyada, waa dagaalka Ukraine. wararka ka imaanaya magaalada Zayzran ee dalkaasi Ruushka ayaa waxa ay sheegayaan in galabta ciidamada Ukraine ay qaadeen weerar sababay dhimasho iyo dhaawac. gudoomiyaha gobolka Samara Faislav Fedoreshev ayaa xaqiijiyay in 2 qof ay dhinteen, 2 kalena ay ku dhaawacmeen weerar diyaarada aan duuliye lahayn oo ciidanka Ukraine ku beegsadeen magaalada Zayzran. Fedoreshev oo warbixin ku qoray baraha bulshada ee Ruushka u isticmaalo ayaa sheegay in militariga Ukraine ay beegsadeen goobaha warshadaha shidaalka iyo tamarta ee gudaha magaalada Zayzran. dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa xaqiijisay in ciidamadooda difaacu ay hawada ka qabteen ama ay soo rideen ilaa iyo 69 dayuuradood oo ah nooca droonka oo Ukraine ay ku soo weerartay gobollo kala duwan oo ka mid ah dalka Ruushka. dhanka arrimaha diblomaasiyadda, madaxa golaha amniga qaranka ee dalka Ukraine Rustam Umarov ayaa maanta ka shaqeeyay in maalmaha soo socda Ukraine iyo Mareykanka mas'uuliyiin ka socota kulan ay ku yeelan doonaan waddanka Switzerland. wadahadalladan ayaa ku saabsan qorshaha madaxweyne Donald Trump ee lagu soo afjarayo dagaalka Ruushka. geesta kale, war goordhaweyta ka soo baxay dalka Ukraine ayaa lagu sheegay in madaxweyne Volodymyr Zelensky waa madaxweynaha Ukraine uu saxiixay wareegto lagu dhisayo ama lagu magacaabayo wafdiga Ukraine ee ka qayb galaya wadahadallada lala yeelan doono Washington iyo Moscow mas'uuliyiinta ka socota. waa hagaag xaaladdu markaasi maraysa. Ukraine qamiista ayaa loo qabtay. Donald Trump wuxuu yiri haddii aynan ku aqbalin heshiiska aan soo jeediyay ee 28 qodob ka kooban, adinka dagaalami doona. isagoo kula hadlayay aqalka cad, madaxweyne Trump wariyaasha wuxuu sheegay in Ukraine ay tahay inay aqbasho hindisaha uu soo jeediyay. marka xaaladda Ukraine waxaa lagu soo warramay inay ku adag tahay dhanka furimaha hore ee dagaalka. barnaamijkii ku horreeyay waxaan idin kugu soo gudbinay 5,000 oo ciidamo Ukrainiyiin ah. waa barnaamijka wararka maanta in ay ku go'doonsan yihiin Kharkiv. dhankan barigana xaaladdu ay ku adag tahay, gaar ahaan magaalada Bogrovsk, iyadoo Kabinskina gacanta lagu dhigay. wixii warah ee arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo, ama intaynu barnaamijka ku jirno haddii ay wax soo dhacaan. waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza. xabad joojintii ka jirtay Mareykanka Gaza ayaa liiqliiqanaysa, waxaana suurtagal ah in dagaal uu qarxo. waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkan. Hamas oo hadashay, militariga Israa'iil oo hadlay, iyo sidoo kale Israa'iil oo dacwad lagu soo oogay
askar lagu eedeynayo inay hub tahriibinayaan sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijkana waxaan idinkugu haynaa sheeko xiiso leh intaana u gudbin dhammaan qodobadaasi aynu ku hakanno qadar xayeysiina haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso waa aqoonta Kamal American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimreeyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa ku samaysay qiimo dhimis waxa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda shirkadda Easygo Travel waxay idin haysaa tigidhada xajka iyo cumrada iyo tigidhada safarada kale ee caadiga ah Easygo waxay wakiil uga tahay UK iyo Yurubta kalaba shirkadda adeegyada xajka iyo cumrada ee Al Raajihi ee Sacuudi Arabiya Easygo mar walba waxaad ka helaysaa adeeg iyo qancin macmiil oo ku raali geliya hamoogaan ee la xiriir Easygo Travel adigoo la xiriiraya telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag qaza aynu ka hormarno xaaladdu waxa lagu soo waramayaa in ay ka sii darayso intaynu barnaamijkan ku jirnay telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa soo tuuray war uu ku sheegayo suurtagalnimada dagaalku dib inuu qarxo iyadoo laamaha ammaanka Israa'iil ay qiimeynayaan awoodda Hamas inaysan dib u soo kaban wasiir hadalka loo dhigay haddaba wararkii ugu dambeeyay hadii aynu eegno ee arrimaha kale ee duqeymaha Israa'iil tan iyo maanta ay waday waxa lagu soo waramayaa in goordhaweyto ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen weerar aaga Khan Yunis gaar ahaan deegaanka ka tirsan koonfurta Mareykanka Gaza oo ka mid ah aaga jeclaha ciidanka Israa'iil ay ku sugan yihiin war goordhaweyta ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidankoodu ay dileen 5 xubnood oo sarsare oo ka tirsan ururka Hamas howlgal ay ka fuliyeen ciidamadu waxaana la sheegay in la beegsaday ciidamadaasi iyadoo warkana lagu tilmaamay in tani ay qayb ka tahay in Hamas wasiir hadalka loo dhigay ay ku xadgudbayso xabad joojinta ulaha boocaha ku tukubaysa sida lagu sheegay bayaanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ka soo baxay dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan Hamas ayaa ka soo baxay baa yiri goob ciidanka Israa'iil ay gacanta ku hayeen waxaana weerar ay ku qaadeen askarta Israa'iil wasiir hadalka loo dhigay sida lagu sheegay wararkan arrimahan ay xabad joojinta ayaa lagu soo waramayaa in ay dhici karto in burbur ku yimaado bayaanka ayaa ku eedeynaya Hamas inay marar badan weeqday wasiir hadalka loo yiri xabad joojinta waxaana la xusay Israa'iil inay sii wadi doonto waxa lagu tilmaamay ka hortagga weerarada lagu beegsanayo ciidanka laakiin war ka soo baxay goordhaweyta ururka Hamas ayaa lagu diiday isku dayada dawladda Netanyahu ee lagu doonayo in lagu dhaqangeliyo xaalad ka hor imaanaysa wixii lagu heshiiyay bayaan Hamas ay soo saartay ayaa si cad loogu diiday hadallada ka imaanaya dhanka Netanyahu oo la sheegay inuu isku dayay inuu abuuro xaqiiqooyin cusub Hamas ayaa ku eedeysay ciidamada Israa'iil inay si nidaamsan u jabinayaan